Ronaldo ayaa xalay waxay u ahayd habeen aad u qurux badan bilowga sanadka cusub ee 2020 kadib markii uu dhaliyay saddexleydiisii ugu horeeyay horyaalka Serie A dalka Talyaaniga tan iyo markii uu yimid kooxda Juventus ayaa guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Cagliari garoonka Allianz kadib markii ay kaga adkaatay 4-1 ciyaar ka tirsanayd kulamada 18aad ee horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. Ronaldo ayaa inta uu kulankan socday waxa uu dhaliyay saddexleydiisii ugu horeeyay ee sanadka cusub wuxuuna sidoo kale caawiye ka noqday goolkii uu dhaliyay saaxiibkiisa Gonzalo Higuain. haddaba saddexleydan uu dhaliyay Ronaldo ayaa waxa ay ka dhigan tahay inuu sameeyay rikooro badan ee taariikhi ah oo marba dhinac kala duwan laga eegayo. shabakada Opta ee ku caanbaxday inay u kurgasho rikoorada iyo tirakoobyada ciyaartoyda iyo kooxaha kubadda cagta ayaa waxa ay muujisay in Ronaldo uu xalay xaqiijiyay inuu ka sare maray Lionel Messi kadib saddexleydii uu ka dhaliyay kooxda Cagliari. Ronaldo ayaa dhaliyay saddexleydiisii 36aad xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta dhammaan horyaalada kala duwan oo ka soo ciyaaray. Lionel Messi ayaa labaad kaga jira rikoorkan kadib markii uu kooxdiisa Barcelona u dhaliyay 34 goolasho loo yaqaan saddexleyd halka Luis Suarez oo kaalinta saddexaad kaga soo muuqday liiskan isagoo 16 saddexley u dhaliyay kooxaha uu soo ciyaaray. sidoo kale xidiga kooxda Manchester City Sergio Aguero ayaa soo galay booska afraad isagoo dhaliyay 14 saddexley.